السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkan cusub muuqaalkan waxaan rabaa in aan ka daba geeyo shirkadii my forex funds ee aynu update-keeda daba joognay update-kii ugu dambeeyay iyo CEO-gii shirkadda oo soo hadlay iyo waxyaabaha uu shaaciyay ayaynu halkan isaga daba geynaynaa haddii Telegram-keena la socotay ama YouTube-keenanba waxaa jiray shirkaddan ilaa waqtigii la xidhay dabagal baan ku wadnay ilaa dacwadaheedii markii dacwadda lagu waayay wixii lagu soo eedeeyay markii lacageeda loo soo celiyay markii iyadoo ay update-yada badan inoo soo diri jirtay marka maantana update-kii ugu dambeeyay ayaa la oran karaa ee shirkaddu ay kusoo laabanaysay ama rajada lagaga qabay ayaa la soo daayay xalay marka muuqaal buu soo duubay ninka shirkadda haysta ama CEO ka ah kaas oo wax badan uu ku cadeeyay marka soo dhawaada waxaan isla eegaynaa announce-yada ugu dambeeyay ama magaranaysa ogeysiisyada ugu dambeeyay kuwaas muhiimka ah marka muuqaalka ayaan guud tagaynaa muuqaalka uu soo duubay ninka odaga ahi waa kan magaranayna maqli doontaan codkiisa iyo in kale balse waa kan ninka odaga ah marka koowaad waxa uu hordhac uu kaga bixinayaa wixii ku dhacay shirkadooda waqtigii la xidhay oo ahaa August haddii aan codka iska xidho wixii ka horeeyay waqtigii la xidhay waxay ahayd August 2023 waxyaabihii lagu soo eedeeyay ayuu ka hadlayaa waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ahaa in ay khiyaanooyin sameeyeen fraud ay sameeyeen laba meelood baa lagu qabsaday meesha koowaad waxay ahayd dalka Mareykanka qolo ayaa dacwad ku soo oogtay kadibna lacagihii badankooda waxa laga xayiray gobolka Ontario ee Canada dacwadoodu muddo badan bay socotay soo isbaa sheegayo marka waqtigii ay dacwadda lagu waayay lacagihii dacwadda kaga baxay xataa loo celiyay waxa ay ahayd bishii May 2025 kaas ayay dib u heleen dhammaan xogtoodii wax walba I'm seriously concerned about commission's kan rush waxyaaba lagu soo to the wrong eedeeyay side of history because we are failing to put in the bare minimum amount of work and actions. These are words of Commissioner Pham. CFTC took gabadhii dacwadda ku haysatay qoladan waxa la yiraahdaa CFTC oo Mareykan bay ka jirtaa marka kuwaas ku soo eedeeyay waa hay'ad more than 3 years to allege fraud. Did they find anything? No. Why? The answer: they lied to the judge before getting a freeze order. They told the judge was paying them in tunes of millions of dollars. And just a little point of clarification: we don't take deposits. We of investigation, the district court in USA. There were no opportunity to waxaan dhan address any qodobo concerns uu ku cadeynayo weeye waxaan dhan qodobo ku cadeynayo in ay waqtiga ay magaranaysa ay dacwad iskula jireen if there were any. If these could have been avoided. Balance the stress. No one deserves that. With my payouts, with my accounts, with my trading history. We put together this huge puzzle of not being able to defend this good name that we have built together. And finally, I understand your disappointment, and I understand you were the ones that had made us the largest prop firm in this industry. marka waxyaabahaas lacagaha badan buu leeyahay waan bixinay muddo 2 sano ah gudahood buyout-keegu wuxuu ahaa ama lacagaha aan bixinay waxay ahayd 30 milyan oo dollar buu leeyahay oo dunida dacaladeeda ah marka wuxuu sheegayaa in shirkadu ka soonaan kara ay tahay bid kale aan kala soo bixi karnaa waxa weeye my forex fund haday soo laabato waa shirkadda kaliya ugu rules adag ma oran karnaa yacni ugu aaminaada badan maadaama magaranaysa wixii transparent yahay hataa maxkamadda la galo wax lagu waayay marka kulli waxay noqon doontaa shirkadda koobaad ee uu ka adeegan doono insha Allah We have paid out close to $300 million over a span of 2 lacagahaas ay bixiyeen years to customers worldwide. We had a stellar online reputation. Not only that, we were built marka dadku wuu cudur daaraya dadku magaranaysa ka raali gelinaya niyad jabkiisa oo waajahay laakiin halka aynu soconno innaga waxa weeye ogeysiiska ugu dambeeya ayaa ina
khuseeya amaan muuqaalkaba u duubnay oysiiskani waxa uu leeyahay aan dhegeysano. I do have one last really important announcement for you guys. Anyone that had requested a payout prior to the freeze should be expecting communications. waxa uu leeyahay dhammaan lacagihii requestiga ku taagnaa withdrawalka waqtigii ay hawada ka baxeen in dhammaantood la soo celin doono dadkii si magaranaysa dhow ama mar dhow la xiriirin doono. marka waa lacagaha withdrawalka taagnaa waqtiga uu dhaqaalahoodii la joojiyay freezing ku dhacay lacagahaas si degdeg u bixinaya. horena waxa uu ku sheegay in datadoodii ay haystaan wax walba ay haystaan akoonada dib loo furi doono qof walba stage-kii uu marayay magaranaysa loo soo celin doono. laakiin tan buu announcement ka dhigay markaa saasuu tan buu soo horumariyay. markaa tan baa muhiim ahayd. from us shortly. markaa qof kasta oo lacag ka taagnayd halkan waxa uu sheegaysaa in si degdega ama si dhow very soon in loola xiriiri doono si lacagooga payout-ka loogu sii daayo. waa guul kale oo MyForex Fund ay gaadhay taas waa dhow usoo jiidi doonta sumcad baabay ku heli doonaan maadaama iyadoo la xiray wax walba ay ku dhaceen haddana dib usoo laabteen halkii ay kasii wadeen garaas sumcad bay ku heli doonaan aaminaad bay ku heli doonaan. shirkadii hore hadday hawada ka baxaan saas dadka ugu dambeyn jirtay laakiin tani waa shirkad markii horeba aan ahayn wixii luqluq aan ahayn ee diyaarsanayd maadaama Mareykan iyo Canada xarumeeda ugu waaweyn ay ku yaaleen. marka saaxiibayaal waxaan idin sheegayaa qofkii payout ku taagnaa ama withdrawal ku taagnaa insha Allah hayla soo xiriiro update halku marayna waan ka daba geenaynaa. marka la soo xiriirana emailada dambe iyo waxyaabaha dambe ee laga codsado haddii loo baahdaba cadeymo dambe waan kala shaqeyn doonaa idinku waan la soo xiriiri doontaan insha Allah. waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad like saari doontaan siina share gareyn doontaan ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd shirkadii koobaad ee ugu akoonada badneed ee Soomaalidu ka qaadan jirtay inaad u share gareyn doontaan. Som Investna waxay tahay ta kaliya ee 3 sano ku dhawaadka aan ka harin MyForex Fund ee daba geli jirtay yaa waliidka marka sidii ka keeni jirtay meel kale ama akaademiyad kale ama qof kale oo intaas sameyn jiray ma jiro. Telegram-kana waad ku laaban kartaa qoraalada dheer aan ka sameyn jirnay YouTube-kana waad ku laaban kartaa muuqaaladan ka sameynay dabagal baan ku sameyn jirnay update kasto ay soo gudbiyaan daqiiqad uu soo baxo ee la wadaagi jirnay. marka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa idinkuna inaad like noo saari doontaan comment noogu qori doontaan wixii garanaysa ra'yigiina ah siina share gareyn doontaan asxaabta oo share gareyn doontaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.